بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أخيارتا ku xiran janalka Toosana Technical kusoo dhawaada muuqaalka xiga ee janalka muuqaalkan waxaan rabaa inaan kaga hadlo 5 qodob oo aan isdhahay muhiim ayay u tahay qof walbo isticmaalaya Messenger-ka waana 5 qodob laga yaabaa inaad taqaanid haddii aad taqaanid dhib ma laha haddii aadan aqoonina sii baro 5tan qodob waxaa ugu horeyso qodobka loo yaqaano search markaad qof Messenger-ka aad kala sheekeysanayso waxaa laga yaabaa inaad mar walbo aad hadallo badan isdhaafsataan 2 sano 3 sano ama 4 sano ka hor inaad sheekeysan jirteen qofkan wixii Messenger-ka markaas uu ku save garaysan yahayna waa la raadinaa haddii loo waqti badan ayuu kaa qaadanayaa marka waxaad samayn kartaa waxa loo yaqaano search conversation ninkan tusaale kale waxaad tegaysaa profile-kiisa waxaad tegaysaa halkan ay ku qoran tahay search in conversation waa taabanaysaa waxaad raadinaysaa tusaale qofkan meeqa mar ayaa assalaamu calaykum dhahay ama uu isoo dhahay messenger ayaa ereyga assalaamu calaykum isku soo qornay qofkan ayaan leeyahay kadib waxaan leeyahay search adiga assalaamu calaykum haddaad rabin wax kale aad rabtid waa raadsan kartaa messenger ayuu ninkan magacaaga soo qoray ama messenger waxa uu sameeyey markaasi ama erey marka uu ku dhihi jiray ama waxa uu ku dhahay hataa ereyadiisa hore haddaa gelisid wuu kuu keeni doonaa hadsaa ujeedid shaashadana saaran qofkan inta aan sheekeysanaynay cimrigeena wuxuu 5 mar oo assalaamu calaykum isoo dhahay iyo mar aan dhahay marka salaanta ugu horeysa waxaa ujeedaa meeshan wuxuu yani salaamay 2017 December ahayd salaanta labaadna waa 11 June 2018 tanna waa 1 July 2018 midda ugu dambeysana waa isu salaamin waa 19 July 2019 midda ugu dambeysa aniga hadda aan salaamin waa 2029 bisha January 2020 marka tusaale ah haddaan taabto salaantan oo isu salaam oo kale 20 December midka ugu hooseysta 2017 ah wuxuu automatic igeenayaa salaantii oo markaas isu salaamay hadda waxaa ujeediin meeshan waa kan salaantan oo isu salaamay qofkan waxay ahayd 20 December waxaa ku fahmi kartaa wicitaankan waxaan dhan aan sameyn 20 December ahayd waa searching waay haddii aad wax kale inaad raadiso oo kale sidii meeshii ku laabanaysa tusaale kale qofkan messenger magaciisa soo qoray messenger yani erey marka aad rabto markaas ku soo dhahay amal inaad aragtid inta ka raadi kartaa marka waxaa loo yaqaanaa marka search conversation waa qodobka koowaad qodobka labaad aan rabo inaan muuqaalkan kugu tuso waa wax loo yaqaano archive adiga qof kala sheekeysanayay qofka aad sheekeysanaysid martid in laga arko yani qoraaladiisa in laga arko martid oo markaas qadii messengerka ama telefoonka hadii qof kale uu ka qaado messengerka doo galo inuusan qoraalkiisa arkin markaa artid waxaa samayn kartaa wax loo yaqaan archive waa maxay archive marka waxaa samaynaysaa qofkan ila sheekeysanaya hadda samafale ay u qoran tahay muuqaalka sawirkiisaan tagayaa kadib waxaan leeyahay waa riixayaa waa tuujinayaa kadib waxaan leeyahay archive marka waa ujeedaa hadda qofka uu qarsama hadduu qof kale hadda raadiyo xitaa inuu waxa laga yaabaa arkin wuxuu geeyey meesha uu hooseyso dadka uu hooseyso ayuu markaas geliyey archive meesha uu hooseyso uu geeyey markaan raba archive-ka inaan soo bixiyo waxaan sameynayaa qaybtan sare chatix ayaan taabanayaa waxaan leeyahay archive chatix ka soo saar hadda waxaa ujeedaa 2 qof oo archive ku jiro qofkaana markaan u baahanahay samafale ah waxaan leenahay assalaamu calaykum markaasaas qoraal uu qortid wixii markaas archive-ka waa soo baxaa marka banaanka ayuu soo baxayaa qodobka saddexaad waa wax loo yaqaan notification oo sida aad taqaaniinba notification-ka qof markuu messenger-ka qof aad sheekeysanayso oo kale markuu messenger-ka kuu soo diro messenger-ka markuu qof qoraal kugu soo diro notification-ka waxa waaye marka oo messenger-ka qof qoraal uu kugu soo diro waxa isla markii soo dhacay hadalka uu ku soo diray shaashada ayuu soo fuulayaa haddaan rabin inuu shaashada soo fuulo hadalkiisa oo messenger-ka bis uu ku ekaado waxaad samayn kartaa waxaa qarinaysaa wax loo yaqaan notification waxaad tegaysaa profile-ka qofka kadib waxaad tegaysaa halka ay ku qoran tahay notification waxaad samaynaysaa notification-ka qaybta mute conversation ay ku qoran tahay ayaa taabanaysaa kadib waxaa leedahay until I turn it back on yani ilaa aniga aan on ka dhahayo ha ka qaadin waay intaa kale haddaad joogtid 15 minute kadib oo kaa qarnaa wuu soo bandhigi doonaa intaan waa notification-ka 24 saac kadib wuu soo bandhigaya hadda kuwan saacadan aad doortid kuwan saacadda ku xirtid waxa waaye marka waxaa ugu fiican marka midkan oo ah ilaa aan kaa qaaday ha iska qaadin kadib waxaa leedahay okay qofka marka saasoo badda miyuda ii saaranba notification-ka samee soo dhacay laakiin marka messenger-ka soo galo hadalkiisa waa arkayaa qodobka afraad waa emoji waxa waaye qofkan tusaale kale markii hadda qofkan hadal fiican ama wax fiican ay soo diro waxaan u dirayaa suulkaas marka waa emoji qofka waxaa laga wadaa okay ama waa maasanta camal laga wadaa marka ma bedeli karaa emoji-kan oo suulka ah haa waa bedeli karaa qofka profile-kiisa markaa joogto waxaad taabanaysaa qaybta sare kadib waxaad taabanaysaa halkan ay ku qoran tahay emoji oo suulka ay ku suran tahay ayaa taabanaysaa kadib waa bedeli kartaa oo marka wax xirtaa ka dhigi kartaa ama love ama labadan far ama kale waxa markaas u baahan tahay ama qosol ka dhigi kartaa kadib hadhow marka qofkan wax ku soo qoro kale qosolkaas markaas u diri kartaa ama marka waxa markaas aad rabtid oo favorite-kaaga ah
qodobka ugu dambeeyo oona isleeyahay qodobka ugu muhiimsan waaye waa people contact. Waxaan ognahay qof walba wuxuu leeyahay telephone touch screen ah hadda gacanta uu ku haysto oo internetka uu ka adeegsado. touch screen intuu soo bixin ka hor waxaa la isticmaali jiray telefoonka yari oo nicla ah ama yeeyaa la isticmaali jiray. telefoonadaas marka lambarada aan ku save garaysanay Facebook wuu u keedanaya wuu hayaa Facebookeena. lambar aan nicla ku save garaysay 2010 2015 2000 wixii aan nicla ku save garaynaysay haddii Facebooka lambarka uu ku samaysan yahay Facebook uu yani upload gareeyay wuu hayaa. intaan ka arki karaa marka waxaad tagaysaa halkan sare ee profile-keena kadib waxaad ka xulinaysaa halka ay ku qoran tahay people contact. waxaad tagaysaa manage contact kadib wuxuu kusoo bandhigi doonaa dhammaan wuxuu kusoo bandhigi doonaa marka dhammaan lambaradii marka aad save garaysatay. kuwaan lambaradan waxba kuma qorna. haddii lambarka marka magac uu ku qoran yahay lambarka hadduu magac ku qoran yahay upload aan ku laabtaan mar waxaan ujeedaa lambaradan dhan waa lambar mar hore aan telefoon niclaha aan ku save gareeyay haddana waa kana meeshan intuu ku jiraa. marka Facebook ayaa markaasi wuxuu sameeyay wuu upload gareeyay wuu aruuriyay wuu hayaa. waana qodobka ugu muhiimsan uguna dambeeyo. fadlan haddii aad muuqaalka ka faa'iiday like saar siina share garay. haddii aad channelka cusub tahay subscribe saar lana wadaag asxaabtaada muuqaalka usii share garay. inta aan ku kulmayno muuqaalka xiga waxaan idinkaga tagayaa sida nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.